Korneyl Caare oo shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay magaalada Qardho ayaa ka hadlay dagaal sida uu sheegay maamulka Hargeysa ay ku soo qaadeen dad maata ah oo ku sugan gobolka Sanaag. Sidoo kale waxa uu sheegay inay ka jawaabi doonaan wax kasta oo dhacana ay mas'uuliyadeeda qaadi doonto maamulka Hargeysa. Waa kan Korneylka oo ka hadlay arrimahaasi. Caare Gaabo buulaleydeeda waxa ka dhacay dagaal foolxun oo lagu qaaday dad aan dib u wadin. dagaalkaas oo aan jahalahay oo ay soo qaaday systemka maanta ka jira Somaliland siba generaalka ciidanka qaranka Nuux Ismaaciil Taani iyo howlgelintiisa oo u dhashay gobolka Sanaag. dagaalkii aan 6 bilood ka maareynayay gobolka Sanaag waa fududaysay waa soo dedejisay waxa arki doontaan in wadooyinka la mari waayo waxa arki doontaan in la finixsado baabuurta dawladda waxa arki doontaan iyadoo kuwa xilka ka haya la finixsado la bidhaansado ayaa argad maadaama ay weerar ku soo qaadeen rag hawshooda wato dhulka ninkii lahaa u halaya waa loogyahay waxa arki doontaan Hargeysa gudaheedu la mari waa laga afturto saraakiisha iyo wasiirada waa arki doontaan insha Allah madalow waayo waa bilowda 6 bilood baan ka maareynay madaxweyne Musabbixi waxa soo dhan uu arkaya uu ka gamay uu ka saxday uu arkaya dagaalka sida loo bilaabaa waa fududahay musow laakiin sida ku dhamaadaa ma fududaan doonto isagana intaas aan leeyahay jabhadu way durkaysaa baysas badan bay yeelan doontaa ilaa saxaabada la bilaabo oo dawladda yar ee daciifka ah ee tirtay maamulka yara ee tirtay la maran halaabiyay ilaa ay bilowdo ma bilaabi doono bulshada oo tiro doona laakiin maanta way bilowday bulshada waxba ma yeeli doono iyagu baanu bilaabsan doonaa. sidoo kale saraakiil ka tirsan maamulka Hargeysa ayaa ku soo biiraya marba marka ka dambeysay jabhadda dulmidiidka ee uu hogaamiyo Korneyl Caare ka tirsanaa saldhigga dhexe ee gobolka Awdal waxaan ahaa baara ka tirsan laanta CID-da gobolka Awdal Cabdullaahi Fadil Iimaan mid baan leeyahay waxaan leeyahay ummadda been oo sheegaysa laakiin Ilaahay been oo sheegaysa khabri baan qabtay gobolkaas Awdal ay ku tuurtay shaqadii waan diiday shaqadii kale haystay anoo sargaal ayaa laga dabeeyay waxaan qabtay nin madaxa dhalay khamriga qabtaniga wax dhalay nin madaxa dhalay saasa gobolka laga saaray imikii haddana waxaan garab taaganahay ku garab dhimanaya amarkiisa qaadanaya Korneyl Caare oo diiday dulmiga meesha ka jira. Yaxya Nuur Muumin warbaahinta dawladda Puntland magaalada Qardho.